بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا barnaamij gaara waa aynu ku eegi doonno shirweynihii dhaqanka beesha xawaadle ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ummad waliba oo adduunka dushiisa ku nool waxay leedahay dhaqan iyo hoggaan u gooni ah waxaana tani ay qayb ka noqonaysaa hoggaanka dhaqanka beesha xawaadle mid sii ta'kiidinaysa dhaqankii wanaagsanaa ee soo jireenka beesha xawaadle waxaana kulanka oo ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ka soo qayb galay dhammaanba beelweynta beesha xawaadle oo isaga kala yimid dal iyo dibadba waxaa sidoo kale goobta uu sharku ka dhacay ku sugnaa qabaa'ilo kale kuwaasi oo goobjoog u ahaa inay ka bartaan dhaqanka iyo hoggaanka wanaagsan ee beesha xawaadle haddaba daawadayaal waxaan idiin soo gudbinaynaa sida u dhacay shirweynahaasi bismillaahi raxmaani raxiim qaala allahu tacaala laa khayra fii katiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqa oo macruuf oo islaax bayna annaas iga raalli ahaada sheekha ayaa ka turjumay saddexdaas waxyaalood uu ilaahayna faray ayuu warkayga ku wajahan yahay saddexdaas waxaa waaye wixii ka soo harro baadda la yidhi inaan faro ummadda aan mas-uuliyadda ka saaran tahay sadaqada inaan walaaka faro inaan islaax bayna annaas aan la mara shirkana sidaas ayaan u qabtay shirkana waxaa loogu magac daray shirka dhaqanka beesha xawaadle ee samadoon waa shir bilaaw ah waa shir ku cusub soomaaliya hadduu ilaahay yidhaahna xawaadle iyo soomaali ayaan ka filayaa inay ila garab galaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dagaaladii sokeeye ka dhacay soomaaliya dhowr iyo labaatankii sane ee ugu dambeeyey ma aysan sabin oo keliya inuu dalka burburo laakiin waxay keeneen burbur bulsho oo ballaaran iyo xadgudubyo waaweyn oo loo geystay dadka soomaaliya dagaaladana waxay isbedel xoggeed ku keeneen dadka iyo qaabdhismeedkii bulshada soomaaliyeed waxaa ka dhashay caadooyin iyo dhaqamo cusub oo saamayn ku yeeshay dhaqankii suubanay soomaalida iyo damiirkii bulshada waxaa soo aynu baxay waxyaabo cusub oo aan soomaali dhaqan u ahaan jirin waxaa lumay miisaankii lagu kala saari jiray xumaanta iyo samaanta wixii ammaan ahaa jiray maanta caybaa loo bedelay wixii xumaan ahaa jirayna maanta sharaf iyo waa lagu faallaan dalkii soomaaliyeed waxaa ka burburay dhammaan wuxuu ku camirnaa sida dhisbooyinka waddooyinka goromada diyaaradaha dekedaha iskuullada jaamacadaha isbitaaladii iyo hantidii dhalmeed oo idin waxaa meesha ka maqan waxyaabihii asaasiga u ahaa nolosha bini'aadamka sida nabadgelyada daryeelka bulshada caafimaadka waxbarashada ربي اجعل بلدنا صومالا امنا ربي اجعل بلدنا صومالا امنا متقدما رغاء وسائر بلاد المسلمين ربنا ضربنا انفسنا وان لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الهي وعيدي سسسره يمعيد اسبوعي كسسسره وحن كويدي سنه ayaan kugu weydiistay ilaahow soomaali tuska jidka toosa ilaahu soomaali tuska jidka toosa ilaahu hiilaha tuska jidka toosa ilaahu xawaale tuska jidka toosa ilaahu hanuunkiisa dhulsan ilaahu hanuunkiisa dhulsan ilaahu ugargaas kiisii dhibaataysa ilaahu unaxariisa inta dhimatay ilaahu soomaali ka kor qaad caradaada ilaahu soomaali ka kor qaad caradaada ilaahu dhexdooda wanaaji ilaahu talada ugu dhiib kuwooda wanaagsan ilaahu baraka iyo qayraan kaa rajayna ilaahu laga aqbal aafada adduunka jirta way badan tahay awl bay leedahay abaar bay leedahay biyo bay leedahay roob hadab bay leedahay ilaahu nagu keeni ilaahu quruubteena isku soo jeedi ilaahu quruubteena isku soo jeedi ilaahu bukeena murcada isku mari ilaahu dhib intii hore nooga ilaahu aan kaa baryi awood mari daaqad mari adaa daaqad leh ilaahu iga aqbal ducadaas wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka mid ahay miilaawe dabcan anaa wakiilka ah waa qoys ama jilib dega shabeelle dhexe
waxayna u badan yihiin dad culamo ah iyo aqoonyaan ah ee kulligood u badan yihiin 90%. waxayna degaan magaalada Jowhar meel u jirta 30 kilomitr. waxaan filayaa 1958 ayaa waxaana soo raadiyey ugaas khaliif wuxuuna ugu yimid shabeelle dhexe waa muddo laga joogo 55 sano. haddana ugaaska waxaan ugu mahadcelinaynaa inuu isugu yeeray dhammaan ugaas khaliif dadkuu raadi jiray gobolladu tagi jiray taariikh aan ka hadlayo uuna soo diyaartay oo khaasatan usoo qasday inuu soo diyaarto miilaba xawaadle waxaa ka soo wareegatay 55 sano ka hor ayuu noo yimid isagoo farda cadcad wata si la sheegay aabbaheed dhashay. marka waxaa la jeedaa muxuu ahay dadka waxay u badan yihiin dad aqoonyaan ah culamo ah. awogeen toddobaad wuxuu qoray kitaab oo fiqh al-islaam la yidhaahdo waxaa kasoo wareegtay 250 sano. kitaabkaasi waan haynaa markuu dagaalada dhacay kadib waxaan geenay Canada. haddana Canada yaalaa kitaabkaas waxaa qoray nin caalim oo xawaadla ah oo miilaba aada u mahadsantihiin. intaas kadib anagu waxaan deganahay labadaas degmo inta qalaafaan u jirnaa xaggaas aan kala wax wadaagnaa dhankaasna degmada Shiraamo dhankaana degmada muxuu ahay Elred inta ka dhaxayda waa gara kartiin intay leedahay baaxadeedu oo dolo iyo dooxaba leh. dadka islaamka aan la deganahay oo aan diriska nahay oo badan oo yarayn oo qabiilaha badan ah nabad ayaan wadaagnay aan isu sheegnay aan kula dhaqanaa awaadana waa u sheegaynaa inaan kula dhaqmayno in lala kaabaana waa rabnaa. intaas haddaan ka gudbo annagu waddanka aan ku noolnahay waxaa laga yaabaa xawaalaha intiisa badano ina maqal ugaas cabdi ugaas khaliif ugaas khaliif feferaa lagu doorto lagu calima saaray maalin maalmaha ka mid a ayaa ninka ligaasodhoon guure iyo nimankaas dhinaca xaggaa degan ayaa arrin isku qabtay. arrintaa markay isku qabteen waxaa la yidhahda ugaas umelilah kulaadi ma helne muxuu ahay ugaas la imaad maalinkaas asoo 15 jira ugaas khaliif aa dhan cad la saaray haddaan sheekada lee cunay waa meeshii marka kaga soo askumay ugaaska iyo ugaasyada kalaba waa meeshii dadkeeduna joogay dalkeedana aan joognay. muxuu ahay taa horta xawaalaha hadduu markana sidaha loo arko tan kale maalinaa su-aal ayaa la su-aalay oo ay qabatay dhanan u jeestan aan waay markii daban inahay anoo meel fog jira oo aan waddanka xawaalo ku jirin ayaa waxaa la su-aalay oo la yiri xawaalada waa ka badan oo wadaha lamida wadaha kalena waa kuwa islaaynahay waxaan xawaalada isku laynay ma sheegi kartaa ayaa lagu yiri. su-aal waa adkaatay noqotay marka ilaahay haddana waa itusiyo waa hanuuniyo waa waadiyo waxani xawaala ilaahayna waa yahay hal ugaasoo ka taala qaataan. waxaana shirka waa shir dhaqan waa shirweynaha beesha xawaale ee dhaqanka. ciwaankaas waa u wada jeeda. shirkan maalmaha uu socdo waxaa rabaa inuu ka soo baxo 8 qodob oo go-aanaha inay ka soo baxaan xawaalena uu ansixiyo una dhaqon doono dhaqanka uu xawaale ku dhaqmayo. maalmahan qodob ayaa loo geli doonaa. qodob walbo waa la soo bandhigayaa waa laga doodayaa go-aanaha laga soo saaraya waa la ansixinayaa. 8daa qodob waxaa ka mida waxyaabaha hadda la soo codsaya ibliiska nabadoonada wax badan ayaa ku jiro. taasna waxaa rabnaa aan ogaano shirkan waa muhiim cidna aysan ka maqnaanin. cid walbow go-aanka taariikheeda xawaale loo gelayo ha ka maqnaanin. wasalaamu calaykum. suma alxamdulilah aniga waxaa ka imid magaalada Jowhar oo yaadigiis intii soo raacda la waayey heer gabar oo meesha joogto door guryeeda ku yaala ay soo raacday inta kale waa soo bixi waayse laakiin waa salaamay soo koreen waaska lagu salaan waa jahannahay abiisa la bixin jiray ducadiisa waxbu haasanaa ayaanka waa aymanaa magacayna waa taagan yahay ilaahay giil
xanafi waxay uga qabaa hadda ka hor wasiirka tegay xamar inaan igaalka xabintayda laga tegey oo ka dooday oo suwa maraya oo maamugu fadhiyey maxaaduu santariga waaweyna dowr ka mid ahay maxaa dadka gadaal ka yimid leeyihin waddanaa ku leeyahay ayaaqanaa ku leeyahay hantiyaa ku leeyahay ilaahay ilkiisa haddana waxaan rabaa xawaalaha maanta ahayd socodkaygu waa yaray wax yar waa wax leegu magacaabay nabadooyaha ilaahay subxaana qaadir leh ummad fiicanna waa helay oo nimankaan heeska xanifla leeyahay ceel fiican oo biyamac oo welibaad la helin ay ii qabeen ee ummaddii iyada kala degtay waxay dhammaysanaya ilaahay baa ii dhammaystiraaya waa ugaaska ilaahay kooxa ka dhigo aniga ilaahaygi weli soomaaligaas qaliif waa arki jiray laakiin ninka cabdiya isma arki jira qaliifa ilaahay baxadooda wax waa qabayo heerjoornaba inaba gacantana loo soo rido soomaalida meel walba gobolba ka timidna lagu salaan 114 lagu salaan anigu wadayaashii hore waxay u fucaan noqotoon ma fadhiyaan aan baaydo wees maxay ahaw gulaabiyo ahaw maxay ahaw ما أنا أقول سنول ولا كيسان بره أنت كلون نقدر أنا فني ديما يا أبو مالي أعرف إيش يا هيبان كم هذا ولو ككوان حوالو حياتي دفع إذا تحفر إذا أتوب السيرات إن عمري سأل داير حوالها أننا اللي جواين أو يننا سلو كنت مجري وما سوماليات الكتغين أسوون والله ما تنجر شد حوال جوان دبكي سلو مرشدنالي في عاجم عاجل حوالي إذا لو ورع الدرسين وبالحوالي الهدي هذا مش ولا شغير حوالي هاي نسي يعني التسينيس اللي سكر وحوين يكون فضلا وحتى سوجينيها القرآن لقد يقول كيسي وحوالي ولا شيء فرعيسى سيدا ما أنت النوبة شرعي مكروف ما يكسر هذه اللي قالت يقال حوالي جيرو يقول يا شيخ كسو غير كسي وباسو علامي إني والمكروب يسوقاته وحوالي قارسية دليليسة يدعى كيسي يدعى كيسي وعصر ولا سوجيني الجوغو سيدو شاقي ببلاهاس سلطان ملك والليله جري لكن هذا وقاسكي الجوغا حيالها ماشا لغا رواين لغا تيفايا وانتغان حوالي مركا تاسو مدار لغولا دباكتا بيو ضدبا وحلغولا قيبساني حوالي اسكسوا مقضي وعن بطنارنا انت سومريا راح قلاشين عمر نكان اسكرغا قلاشين عمر هورتين عمر كقبل وقالوا بعدين هذا marka waa inaad wuxuu meesha la timaado marka hadda hiiraan joognaa weeska xawaalan joognaa marka waa qaliif mumtooxu iyo xawaalo soo jooga wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh marka hore weeska beesha xawaale wees cabdiraxmaan wees qaliif wees rooble odayaasha dhaqanka ururka haweenka dhalinyarada saxaafiyiinta siyaasiyiinta gudoomiyaha gobolka haddii aada ku reexa waalaha carada kala duwan isaga yimid hadday tahay kuwa etoobiya ka yimid hadday tahay kuwa ka yimid jubbooyinka kuwa muqdisho ka yimid kuwa haddii ay kushabeelooyinka ka yimid dhammaan xawaalaweynaha isu yimid mar labaad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xawaale xaqiiqatan waxaa farxadii ah 18 sano waxaa 18 sano ayaan ka maqnay hiiraan 18 sano kadib dalku haba iska rafaado haba iska burbursanaado laakiin ina ciidayda hooyo ku soo laabtay aniga oo ka wakiil ah qurbajoogta qaasufur qurbajoogta reer ingiriis kuwa reer london anigoo ka wakiila waxaan safar dheer aniga iyo xubno kale aan u soo galnay shirka uu ku baaqay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooble
shirkaas oo ah shirka dhaqanka beesha xawaale shirkaas ayaa safar dheer u soo galan 7 maalmood ayaan diyaarad u soo saarnay aniga xubno kale waxaa kala xawaale amniyadda uu noo leeyahay shirkaasi taas oo runtii aanu u qabnay jacayl iyo kalsooni aan dalkeenna iyo dadkeenna ku aragno kuna taageerno dhaqanka uu ugaasku ku baaqay waxaan bogaadinaynaa oon ku baaqaynaa oonu taageeraynaa haddaanu nahay qurba joogta qaasutur kuwa ingiriiska shirka dhaqanka oo ku baaqay ugaas cabdiraxmaan ugaas qayd ugaas roobe kaas ayaanu taageeraynaa waxaanu taageersannahay wax kasta oo xawaadla ku heshiiyo oo dhaqan u ah oo dan u ah oo ka soo baxa ayaanu taageersannahay haddaan taageerada qurbaha aan ka baxo waxaan rabaa inaan ugaaska hortiisa iyo xawaadla weyne hortiisa aan ku taageerno qurba joog ahaan qolada dhinaca etoobiya ka timid waxay u baahan yihiin taageero waan ognahay anigu intaan dibadaha joogana weliga waa taageera ayaguna waa ogyihiin nin kasta oo ka hawlgalay waa garab taagnay haddana sidiiaan u garab taagnaanayna aniga iyo waxaa loo wixii ku fikira ugaaska iyo odayaasha xawaale dhaqanka iyo xawaale weynana waxaan ka codsanaynaa in meeshaas dhibaataa ka jirte in dadkooda in lagu fiiriyo intaasina codsigayga ta waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo shirka xawaale guul ugaaska baaqiisa guul ilaahay waxaan ka baryaynaa ducada loo duceeyo ugaaskana aqbal alla ka dhigo xawaale anoo ku hadlaayo magaca gabdhaha xawaale meel kasta ay joogaan dibadda gudaha cunuga caawa dhalanayo gabadh xawaale nimanka ma ahan waxaan diyaar u nahay in xawaale israaco waxaan aad ugu faraxsannahay maanta waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hiiraan balweyne aan weligay maanta xawaalo intaa leegaan dhex taaganahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay haddaan gabdhaha xawaalo nahay meel kasta oo joogno shirka ugaaska iclaamiyey inuu dhaco oo si fiican u dhaco oo laysku raaco toobada laysku waafaqo aan niyadeena jeceshahay insha allah waana helaynaa waanu ku daba taaganahay ragga xawaalana waxaan ka codsanayaa odayaasha kuli dhalinyarada in ugaaska taladiisa la qaato raggii meesha ka hadlay waxayna dhiirigeliyeen khayro wadaninimo tolnimo hadduu maanta isku warsaday xawaale kiisii joogay fiilto kii hiiraan joogay kii kismaayo joogay kii banaadir joogay iyo inta kalaba waxay noo tahay wax weyn waan quweynaynaa waxayna noqon doontaa taariikh sidaas halka u sheegay shir dhaxalgala inuu shirkan ka soo baxaa oo qarniga 21 bilowgiisa uu noqdaa ayaan u rajaynayaa qodobadii ugu muhiimsanaa way noo dhiman yihiin waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo erebixintii ama habdhisanka xawaalo markii la sharaxayay magacyadii qaldaadka ee galay talagal ma ahayn farsamada ay noqotay iyo garashada qofkaas marka taas waan ka tacsiyeynayaa intii hadashayna oo mahad celiyey إلهي وحكبرنا وإلهي وكاتوبينا وبلد عينا تعالى ما تأتينا هلو الله يكرم ولكنني حرم الله كدو سريع بول الله كدو كل كل دون يكفي الله كدو سريع كل يسام الله كدو قالوا يقول حلوة حمالي حمواج ونيا حلو قالوا يقول عين الله يكدو تعالى ما تواس بدي كان أو يديون أو ترى من توفيق كيشين الله يكدو موافقة من كيشين الله يكدو
ما تهان من قحيون همير يا الحديد وحدي واسكني كان الله كذو حوالو يدين كان الله كذو إلهي يا كبرنا ويا مكاتوينا موافقة أسوينا وإلهي صورك وواك على الكلمية أصوم أمريكا روحيسو إلهي توبواي موافقة إلهي وتر أو توفيقة أو واك على الكلمية إلهي هنغريو يا حوالو واسع واسك وحدي بيحاول يتعاطى انت كانوا ما او تعيسي الهي ما كبرنا قادروا هي الدنيا هي الضل هي الدنيا هي الدرجه هي الهرب وحبوا الهرب ولكن وكي حاجه وهو ما هي حاجه وهو كربوا ما هي حاجه درجه هي الدين هي الدنيا هي عمر هي عبادات الله في حاجه هي الدنيا في حاجه هو شنو أنا من حاجة ذكر ما بعينه وطويله هو أنا كان عليه ما بدعينه أنت كان بدعاء كلامه وحده هو بدعاء الله الله لم يا متكي من الكيم هي متكي من الكيم هي متكي هيران جوج قلبي سأله سلطة على شيء أنا أذكر متكي سكر على لا توجي تيجي تروي على كذا موافقة على سي ويا كيس على هذا وسيبنا على هذا قبضه كان هني ويهد على الله كذا كي قالوا إلى يوم كتبين الله سنتس كي قالوا علينا ولا سنتس كي قومنا له أن تبكر كم موافقة وتوفيق له ولا يسكت بكر حوالينا يا هدو shirkii ayaa maanta maalintiisii labaad noo sii socdo waxaanu ku bilaabanaynaa maanta wax lagu bilowdo wax ugu khayrka badan aayaad qur'aan kariim waxaanu leenahay acuudu billahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وحانو شركة مانتا ومالتي لما تكجر نوفليو سيدي هربان وغفراني كلمة يرؤو جيدين وبس طمان تكسوغاب شكونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة شرعا فرني فرطان ما هن لكن ما نربا إن كلمة الغفرة هو مهم ليه وحقوق طال له شركة شرعي سيف حسمية أيوه داعي وأنا أقوم حاجة علها أنت كسر غير شيء ما أنت نسيت ولا إنك صعدان جعلها شركة أنت على فرن شركة جديدة أنا أسكالها لكن حقوق دريا أنا البرحين أو لا يبرحين توبك قبيل وحلاقي شيئين دولة وحلاقي شيئين أور وحلاقي شيئين هيئات وحلاقي شيئين حوالة دريسة لا يهضيها إنك استوى الله إنه توبك أو يبرحين oo ku akaada shirka Soomaalidoon ee beesha xawaalo dhaqanka waxaan kaloo dadka xasuusinayaa qalabku dhugay farabadan meesha ka suran mar walba halku dhugayno wuxuu noqonayaa aayadda quraanka la khayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqa oo macruuf oo islaax bayna الناس shirka waxaan la weydiiyaa markasta shirku muxuu yahay iyo maxaa loo shiroohayaa iyo لا حال هذا وريالا مربي يسوي هيدنا شركة هرنا واسوا وشوا وإعلامي أنونا وشينا شركة هواي شرنا بتقلي هواي وإعلامي واسكا أنا بس أنا نقول كل شيء أنا أوامرت واسكا أبوس أنا واس عبدي مدة أودلك كم غناي مركو بصل الله تدلك وعبد وسوق لفي أنتو مغناي وهي هلاوي أما كرداتي إنه سكودو أما توسيو أو سكودي وحبلنا وكبوليستي وهي ودمنا وهذا ديارو هاي إنه ضمن شو وبس عبدي وواسك حواضله السلام عليكم وبس عبدي وواسك حواضله هاي
nin aqoon-yahana mutacalimana waa yahay nin dhallinyaraha waddadiisu in aada u weyneyna waa yahay nin nabad jecelna waa yahay nin aada maskaxdiisa u shaqaynaydo caaqil ahna waa yahay ugaas cabdi intuu kulliyey ma badna ugaasahu ma badna ugaasdadiisu intaanay la-eg tahay oo ugaas ah oo aqoon-yahana oo nabad jecel adduunka kuma badna wax ilaahay annaga hibo u noo siiyey ama caafimaadsiib u yeelana waaye kan aad waxaan u mahadcelina guddiyadii guddoomiyeyaasha ama guddoomiyaha sare ama haddaan kafayeenka ama guddoomiye ku-xigeenka ama gabdhaha daadiyey shirkan ee ku soo simay heerkan inuu gaaro waa u mahadcelina horta sida la sheegay shirku ma aha shir siyaasadeed ma aha waa shir dhaqan intaas kadib waxaa laysku raacsan yahay shirku inuu shir dhaqan yahay shir dhaqan inuu yahay marka la leeyahay shir dhaqan dhaqankaas oo beesha oo laga hadlaayo waa dhaqanka islaamka horta dhaqanka islaamka waay dhaqan kale ma aha dhaqamo waxaa jira oo islaamka meelo badan ka duraaha jira waxaa jira dad soomaaliya oo dhaqanadooda marmarka qaarkood meelo badan ay wax uga jiraan waxaan aragnaa kuwo markay roob waayaan istuma dhaqan waaye dhaqankay ka mid tahay xawaalo dhaqanka uu leeyahay markaan usoo hoos kusoo degno oo beesha isugu timid shirkaan ah ugaasku u cilaamiyey ku raacday ay muddo 4 bilooda ka soo shaqaynayda shirkaan inuu suuro galo dhaqanay leedahay dhaqankeeda horaa u sheegay dhaqan islaam waay damcoo damaxdu naartaydu gabay kii dardaarame diiwaanka mid ku waarayoo lagu dawoobayo xigmadda habadeelii habboon dirito aan duubo idinkuna dal yeeloo dirayaa la deelqaafin bergow darajada heedadow daacadi ahaaba maskax doora caqli diinlahiyaa lagu dangaaraaye daawashiyo tartiibiyo tabbaa lagu dabaashaaye kibirkii isdulduulka waa lagu dimxaa uunu dulqaad baa u roon aadanaha kii u dawgale eh fureed baa dayaca howl yaroo diro isleedahay isdugaashi iyo duumniyaa lagu darduurtaaye danta guud adeecaha dawgii lagu dardaarmaayo danta guud adeecaha dawgii lagu dardaarmaayo ballankii axdiga doon oo dhacay kusii giija isku tura isdaadihiya oo dabacsanaan yeesha niyadiyo qalbiga dooja oo daacadiisu raaca kii miidiciifaba dallaca oo darajo gaarsiiya dar ilaahu saaxiiba oo diinta isku sheega isagyaana doonaha ka taga daahin abidkiinba beentiyo dulmiga dhaafa waa lagu dandaadaaye xanta iyo damiga daaya waa lagu daciifaaye dunuubtii ka taga diradiriyo darin la qoolaayo dunuubtii ka taga diradiriyo darin la qoolaayo dadkaygu danteennaa ka weyn diro colaadeede isku duuma dibadaha ka taga dil walaalo waxay dagan dahsoona dalbanayaa wadaba yaacan waalidkiiyo duquudiyo dabara kuwa dallaydaada ducaadana adeecaha xaqay loo daliilsheega deriskiiyo xigaalaha wanaag ugu digtoonaada kuwii aan isdirin isdagaalino dayris u ahaado in uu daa'imada ka dhiga dalbaya ducada aamiin duruustii cilmiga qaata oo jaahil dabargooda dukashada salaada iyo dacwada dooran u ahaada dugsiyada ku deersada samaha daalin u ahaada soonkiiyo sakada dabadhigoo duunyo badan dhiiba dariiqaa isugu yeera waa lagu dawoobaayo cadfis iyo dulqaad iyo degnaan duru ku sii jooga aakhiraa dambaysee badabsahan usii qaata ragna meesha way soo istaageen waxaa ahay ana dumar oo ilaahay niso ka dhigay maadaama aan niso ahay aanan raggii meesha soo istaagay aanan gaari karin balse waxaan jeclahay wax yar oo dareenkayga ah inaan meeshaan ka sheego aanan ku sheego buraanbur ilaa ragga waxay leeyihiin gabay anna waxaan leeyahay buraanbur hana la iga raalli ahaada hadduu idin qancin waayo siday ila noqotaan waxaan kugu sheegay bismillaah
gabayga saldhigihiisa soodkayga waxaan ku furay gabayga saldhigihiisa soodkayga waxaan ku furay salliga nebi muxamed iyo suuradaha qur-aan salliga nebi muxamed iyo suuradaha qur-aan salaan sharaf lahaad xawaad low ka simantihiin waxaan ugu xujinayaa ugaaskeena sharafta lah ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooble ugaaska xawaad la arrintiisu way caddahay ugaaska xawaad la arrintiisu way caddahay xawaad la doortay oo wow ammaanan yahay xawaad la doortay oo wow ammaanan yahay allow isha aadan iyo afaka xijaab waxaan ugu xijinayaa walaalaha qurba joogta ah ee noo imaaday ee ka dambeeya shirkan qaaliga ah xawaadlaha qahaaliga ahoo qurbaha ka yimid qahaaliga ahoo qurbaha ka yimid qarashka bixinahayo oo aan khilaaf lahayn qarashka bixinahayo oo aan khilaaf lahayn qorshaha noo keene khayr baan u tuugayaa waxaan ugu xujinayaa shirka meeshaan ka dhacaya waxba ma aqanayaa leelayaa waana cabsanayaa oo shirka xawaahan la sharaaftiisa fiicana oo shirka xawaahan la sharaaftiisa fiicana sharciga lagu qaatay sharaaftiisa fiicana sharuudda lagu fuliyo sharcigeeda fiicana waa 9 sharuud sharuudda lagu fuliyo sharcigeeda fiicana shakuurkan tuugi kun jeer baan shukrinahayaa shakuurkan tuugi kun jeer baan shukrinahayaa xawaad laha horumarow heer kastoo tihiin xawaad laha horumarow heer kastoo tihiin inaad isogahamisaan horay aad martaan inaad isogahamisaan horay aad martaan rabbiga aad hodansataan heegan ma u tihiin rabbiga aad hodansataan heegan ma u tihiin dacada feerfeher degaan iyo dooxa kore dacada feerfeher degaan iyo dooxa kore diracyadii maxamed alay baad ku dilin dilqayn diracyadii maxamed alay baan ku dilin dilqayn oo daa'im baan tuugi siday doontay inay noqdaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa cajab iyo layaab misana cibro noogu filan cayaar aan naga mudnayn sanadkii caamul xusni la yidhi reer cabdimudalib ibtiriya carab wuxuu u galo inaan laga gelin cunshuro guurkooduna caaga yahay waxaa cajab iyo layaab misana cibro noogu filan cayaar aan naga mudnayn taariikhdaas carafta badan caqlina waa leedihiin waad ka soo gaabinayaa taariikhdaas carafta badan caqlina waa leedihiin intaynaan cara aliya cadaab nagu soo degdegin dhulkana cuudkaan camiran cadaaduf aan looga tegin webiyada calowga badan intay ceesheennu gurin samada adduunyadan cirif ka cirif samada caad looga dhigay sidii cokad iyo maqaar intaan cirifyada la qaban intaan caad iyo tamuud cuquubaday keensadeen iyo cadaabkoodiina helin waryaan caymada la gabay gabagaasi waa waanadii anigoo soo gaabin doona insha allahu tacaala warkana uu badan yahay waa iska soo gaabsanayaa gabaga labaad oo la yidhahdo madal heshiis raadin ama waxaa la yidhahdaa allaa magansan doonaay muhiimaddayda gabay maanta ninba gabaga muraad buu ka leh lagu macneeyaaye anna maxaan mala awaalaa waxay mahatay laabtaydu muhiimaddayda gabay maanta waa madal heshiis raadin madarda ay miyaay hore iyo miliga roobaade dhirta oo magooshiyo madow qurux ku maaweelin mililacay indhaha muuqsatiya midabku soo jiida macmacaan qabow iyo xareed meel ubaba jiifa mawaashida nicmooleyda iyo maqasha foofaysa ee dhayda laga maalay iyo subaga miirdaaba iyo nabad lagu mashaawiro mar qura lagu mataanoobo maxabada ka haystay shacbiga murugsanayeen ninkii maanic ah oo allaa magasan doonaa masiibaday dagaaladu dhaleen mowdka iyo hogga macasta iyo masaakiinka badan 100 malaayiina madaafiic damaam loo saxee lagu mahiibaayo muslim eebbahii mahadiya muumin iyo sheekhle makaankuu lahaa loogu tegay minanka kiisaaya ee laga mihibsaday wuxuu maal ku kaysaday
maqariya midiba lagu baray nafluhu kala maciin roon mukulaala meydkaa cunee micil libaax yeeshay iyo masruuf waxaa looga dhigay hadka miriqlayn maayiirka iyo masiibadan dhacdiyo murugadan taagan qalbigaan ismaan dhaafay ee kala mulhaadooba sida muuqataa maalmahan waa masale khayr leh iyo nabad lagu mashaawiro mar qura lagu mataanoobo maxabada ka haysee shacbiga murugsanayeen ninkii maanic ahoo allah magansan doonaa dheh ninkii maanic ahoo allah magansan doonaa marka ugu horreysa abaabulka shirka waxaa iska lahaa horseedka reerka ayaa iska lahaa ugaaska reerka iska lahaa isagaa u doortay beeshiisa inay isugu timaado shirar noocaan ah iskama un dooranini kolley waxa uu u doortay waa dhaqihii reerka waa og yahay wixii la soo maray asagoo ku tashanaayo waxaa la taagan yahay ku tashanaayo waxaa la doonayaa in loo gudbo la doonaya ku tashanayo ayuu wuxuu doortay shirkan noocii uu u doortay iyo qodobadii la keenay ee uu u arkay dhaqanka reerka haddii ay qaataan 9kaas qodob ama 8daa qodob ay qaataan inay asaagood wax la qabsanayaan uu u doortay shalay waxaan u malaynayaa sacab baa lagu ansixiyey gacantaagaa lagu ansixiyey waa la isku wada raacay lagama hadle keliya xawaadle wuxuu u baahan yahay marka wuxuu u baahan yahay oo keliya 9ka qodob ee halkan laga soo jeediyey ee shalay laga akhriyay ee la ansixiyey iyo maskaxdii ay ka soo maaxatay 9kaas oo sidii loo akhriyey ama loo ansixiyey loogu dhaqmo salaanka bacdigeed waxa weeyaan walaalayaal horta wanaag iyo sharaf umbaad bilaa aadanka u horsocdeen ugaaska waa salaamahaya wanaagga uu yacni idinkugu muujiyey ama ma garanaysaa shirka isugu keenay ummadda soomaaliyeedna waa inay kaga daydaan uu xawaadlo ugu baaqay waayahan dhibaatadii ama jidhay ama dadkii haddii alla kuuraya waxa weeyaan aad iyo aad haddii alla kuuraya duurarka ugu wada jiray isku keenka imaatinka sharafta uu isugu keenay ilaahay ha ka ajarsiiyo haddaan nahay annagu deriska haddaan nahay beelaha daarood aan nahay beesha sade aan nahay waa u hambalyaynaynaaye ilaahay wanaag haddii alla ku raajiyo ummadda kaleeto oo soomaalida ah oo deriska laa inay ka ambaqaadaan arrintaa ka ambaqaadaan oo ku daydaan oo haddii alla kuu rooya ayaguna wanaagga ay u baxaan inta kaleetana waa ku baraarujinaynaa ilaahay sharaftiinna iyo madaxiinna allaha dhowro qabiilnimada allaha dhowro wanaagga allaha dhowro kii madaxiisa uu raaga allaha ka dhigo kii talada iyo tawaafiiqda uu isku keenay ilaahay mideeya ha ka dhigo wixii ku kala jira cudurka allaha ka saaro wanaag allaha u bixiyo intanada kaleeto beelahaana waa ku dayanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد dhammaan inta ka soo qayb gashay shirkan intii uu socday inta ka qayb qaadatay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif oo runtii dadaal weyn ku bixiyey inta uu soo abaabulayey iyo inta uu shirkan hadda socday iyo maantoo gebagabadii ay tahay laguna soo gebagabeeyey in lagu saxiixo waxa ugu wanaagsan ee aan runtii dunida islaamka badankeed aan ka dhicin oo ah in beeshan ay ku dhaqanto oo ay ku noolaato sharcada islaamka waan ugu mahad celinaynaa waana ku taageersannaha ugaaska runtii saakay wuxuu ka dhawaajiyey in uu doonayo inuu shirkan halkaan ugu ekaanin oo uu doonayo shirkan dhaqan ee nabadaynta ah in uu sii wadayo ilaa soomaali cirifkeed iyo ka cirifkeed annaguna waxaan ka ballan qaadnay saaki uuna weydiistay inaan ku taageerno arrintaa waa hadal adag waa hadal weyn waxaa loo baahan yahay inaan ku taageerno haddii aanan nabadda ka dhabaynin haddii aanan waxa ansixina aan ka dhabaynin haddii aanan ugaaska lagu garab gelin in soomaali oo gogashaa dhaqan oo geedka hoostiisa ay ku heshiiso iyo heshiiskaasi oo ah waxa ilaahay uu doonayo ballankaan qaadnay been buu noqonayaa cuqubaana laga helayaa waxaan rabaa inaan dadka ku dardaarmiyo dhammaanteen nooc kasta oo aan leenahay bulshada
inaan ugaaska tubtaasi fiican oo uu qaaday oo uu tilmaamay oo uu muddo ka soo shaqeeyey inaan ku garab galno oon ka dhabayno ta kale ugaasku wuxuu wadaa mashruucyo badan oo halkan laga yabaahay dadka dal iyo dibad kuwa jooga iyo kuwa maqanba ay ka qayb qaadanayaan khayrkaas waan ka qayb qaadanaynaa khayrkaas waana ka qayb qaadan doonaa insha allahu tacaala dadkuna waxay yabooheen waddadaasi in la dhiso waddada wax yar maaha islaamka xaggiisa markii laga eego xitaa dhibka oo laga suuliyahay sadaqada ayay ka mid tahay oo ilaahay naga rabo wadogtoontiin waddadaasi dhibaatada ay qabto garoonkaas asigana waa wejiga keliya ama gegiga ugu weynaa xagga hawada ee dadkan loogu yimaado xanuunkiisa iyo dhibaatadiisa waxaan dareemi karnay markii fatahaadii dhacday oo meelna loo soo mara la waayo inaan wax ka qabanno intay goorogoor tahayna waa wax loo baahan yahay arrintaasi anigu waxaan sheegayaa waxaan ku darsanayaa lacagtii shalay lagu darsanayay lacag $10,000 ah ugaaskana u sheegaya waxaan kaleeto insha allahu tacaala hiiraan nabad bay hadda haysataa nabaddaas inay sii korto oy sii socoto oo ay weligeed sii jirto waa mid lagama maarmaana dibna looga noqon maayo hiiraanna insha allahu tacaala meeshuu joogo gadaal uga laaban maayo dadka badan ee ka soo qayb galay shirka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii shirku shir siyaasadeed maahan laakiin maamulaan ka soo galnay qodobada ugaas uu ku baaqay oo runtii aad iyo aad u muhiim ah waxay u baahan yihiin in la fuliyo fulinna waxay ka dhalataa shacabka dowladda lagu sheegaya waa shacabka hadduu qaato wuxuu ku heshiiyey waxay u baahan yihiin keliya nidaamka markaas meeshaa ka jira in uu la xakameeyo oo qodobadaa dadku uu qaatay inuu la xakameeyo waxaan rajaynayaa horta qodobadan iyo kuwo kaloo la mid oo badan inay qaadan doonaan reer hiiraan waxaan ugu ballan qaadaynaa xawaadla hadda maanta ugu horreeyo wax allaalay waxay ku heshiiyaan nidaamka dawliga ah wixii inta aan joogno meesha kaga aadan waxaa ballan nagu ah inaan wixii lagu heshiiyo xoojina insha allah dowladnimadu waxbarashada caafimaadka amniga qodobada 8 ugaaska uu ku baaqay waa arrin u baahan in la kaabo shacbigu 100% qaato nidaamka dawliga ahna lagu xaqiijiyo oo ciddii qodobkaa gafta ama moogtahay daba marta in la heli karo sharci lagu qabto oo nidaam dawli loo helo marka waxaan ballan qaadaynaa inaan kaabayno ka dawlad ahaan inaan xoojinno qodobada ayaga insha allahu meelmarintooda intaa kadib runtii hadal badan meeshana nooguma furna waayo wakhtiga ayaa cariiri ah waxaan codsanaynaa markaanoo ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ah reer hiiraan waxay haystaan waxyaabo badan oo hadda shirkan waxyaabaha ka soo baxay oo kale ah oo ku baaqaya amni in la helo waxaan idiin sheegaynaa oo aan ognahay ka maamul ahaan hiiraan maanta caalamka inay tahay meesha keliya oo indhaha lagu hayo xagga amniga horumarka iyo waxbarashada intaana waxaa keenay shacbiga reer hiiraan oo shaqeeyey oo amnigii ka shaqeeyey waxaan codsan lahaa in lagu dadaalo in amniga laga shaqeeyo amni la'aantiis wax kaloo hirgelayaa ma jiraan waxaa kaloo loo baahan yahay sidaad ogtihiin amnigan iskama imaan xaaladdeena waan ogeyn marka hore allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa beelihii kale ee gobolka idinla deganaa kuma qancayaan inaad la timaadaan waxaan ahayn inaad isku maamulaysaan ama aad ku dhaqmaysaan shareecada islaamka alxamdu lilaah ilaaha mahaddaa iska leh waan filaayey aniga shakhsiyan waan filaayey inuu hadalkaa ka soo baxayo beesha allah mahadda iska leh allah mahaddaa iska leh intaa kadib waxaa xigaya in loo gudbo wixii shirkan ka soo baxay beelihii kale nala deganaa ama haddii aan nahay beelihii kale gobolka idinla deganaa shir midkan oo kale ah oo ay lagu gaarsiiyo ama uu istifaaq kaga dhaco sidii loogu wada dhaqmi lahaa arrinkan shirkaas kale waa muhim waan isla soo sheegi doonnaa kolba annaga duubabku waxaan isku nahay hal magac
waxaan rabaa inaan reer hiiraanka hadda ama xawaadla halkan fadhiyan u sheego 4 ama 5 duube hiiraan joogta hadba ruuxii u hadlaa waa mid ay ka dhan yihiin oo ay raalli ka yihiin marka inaan sii ballaarino gobashan oo aan gaarsiino gobolka oo dhan waan rajaynaynaa arrinkan insha allah wax kale ma ahayn waxaa hadda meeshaasi iiga muuqata ama duubka sidiisaba waxyaabaha laga rabo kow ka ah taamaruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar inuu dadka macruuf ka faro xumahana ka reebo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكمة كتابه تنزيل لا غير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما شركا ما أنت الأسبوع يمد هالكودكي سواء آية داس قرآن كأه وكهال يسوع سدح مادو وحي كسهرنا إباد ليهين شر الأسبوع مادو وحلوه هذانا دان صدقة الأسفرين معروفنا الأسفرين إصلاح بين الناس والنسمين إني وحي كسهرنا بعد وتها أيام شاقينا مركو هوري وحنجعل الله ومدة هذا هل كان سوقه تيمت marti sharafta reer hiiraan dalka ka yimid deegaanada kale oo kala duwan marti sharafta dhammaan xawaale inta ka timid qurbaha inta ka timid Kenya inta ka timid Djibouti inta hiiraan degan inta degan 8 gobol ee Kismaayo u shaqeyso waxaan dhammaantiin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام كذب إلى بقى محله وحي كسر هرا ومضي أغبشي دلبكي أنسمي وهل كانت همت ومال إير كتمت ومال فكتمت أي كانوا حد عليها وربنا ما أنت يقوم مجرو شركة وحان فري بش اللي واتن كيدي ما أنت وسوحرينا قانا ده حلقة أيا كصوب بهاي مركا وقاس وحلوها بي أنت هذا الشيء أيا أصيبتي وركي وحليها بي وكلينا وحيتاه إنا dadka u duceeyo balse intaan ducadaas aan gelin shirka hadaa wax yar dib ugu laato taariikhdiisa aniga muddo 3 sano iyo dheeraad ah waxaan ku sugnaa magaalada Nairobi waxaan go'aansaday dalkii inaan ku soo noqdaa nin waa maqnaayay maxuu leeyahay la isweydiiyaa meeshaas anoo ka fikirayo waxaan soo qorshaystay barnaamij aan u bixiyay qorshe howleedka ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif qorshahaas waa ballaaran yahay qodobo badan oo ka sameeyay yahay qorshahaas waxaan ugu talagalay sanadkan 2013 lambeeda 1434 hijriya qorshahaas barnaamijkaas waxa uu sii weyn oo tirdhaxaad u ah shirkan maanta halkan ku soo xirmayo shirkan qabanqaabadiisa muddo soo socotay halkan badan la sameeyay gudiyo badan la qabtay gudiga qabanqaabo gudiga hoosaadyo qodobadii aan soo jeediyay oo u soo bandhigay beesha xawaale waa la wada qaatay shalayna si saxaabay iyo fagaaraha lagu ayeeday haddana ilaah hortiis anoo ka hadlayo xawaalo waxaan farayaa qodobadaas aan saxiixsan meegulu shaqaynaysaan mas'uuliyad culus dareemayaa inaan wada fulino meega ballan qaadisaan waxaan hadda gaarto waan ku kalsoonahay inaan fulin doontaan intaas haddaan xawaalo u gudbo Soomaali weyn nabad iyo baaqam soo jeedinaya khaasatan ragga ilaameeda oo magaca dhaqan wato duub hal yiraahdo ism hal yiraahdo garaad hal yiraahdo malaaq hal yiraahdo iyo inta wamar hal yiraahdo iyo inta ka soo hartaba Soomaali maanta way kala tagtay sidaan u arkayo adiicu Allah wa rasuuluhu wala tanaasu'u tafshalu wa tadhhab riihakum wasbiru inna Allah ma'a saabiriin Soomaali dooday badisay kala fogaanshahay badisay waa qof kale wax kama sheegayo
laakiin dhaqanka soomaalidu kaalintaada qaado dadka isu keen dadka isku soo dul dadka way isla dhasheen isma necbo waa wiil abtigiis waa habaryar waa in abti waa in adeer waa isku dhexeen aniga ka cabdi ahaan waxaan soo jeedinayaa inaan ka bilaabo ummadda xawaadle beelaha kale oo dariska nala ah hiiraan ha deganaadaano gobollada ha deganaadano intay awooddeeda gaarto inaan soomaali aan isku soo dumaa hadday ii suurto gashan soomaali aniga iyo ugaasada reer hiiraan inaan u dhignaa gogol nabadeed oo dhaqan anoo ka bilaabayno gobolka hiiraan ku xijinayno beelaha aan dariska nahay ku xijinayno soomaali intii ka soo gaari karto taasna hadday suurto gasho waa muddadeeda ay leedahay waxayna ku xihan tahay beesha aan ka dhashay siday u qaataan ay xoogaay arrintaas ay iyada garab galaan war arrintaas aan iclaamiyo xawaadlo mila qadeen gogashaas nabadeeda ma dhigaynaa soomaali muu dhigaynaa dhaqan muu dhigaynaa soomaaliyana ku shisiina isku dayaynaa dhaqanka soomaaliya dadka soomaalida oo isla dhasha iyadoo siyaasad laga fiirin xuduudada beenaadka loo dhigay inaan ka furfurno oo ummadda isdhex marto waa isdhaxleen waa isdhaleen waa abti waa adeer ummaddaas min jabuuti ilaa gaarisa joogtaa intaas inaan nabad aan ku dhex soo caalamaalno intaasaa aniga aan soo niyeystay adinkaana ku talagelayaa migama la qaadan waa mahadsantiin haddii intaas laga gudbo aniga maantii magacaan lee dhiibay sidaa khudbadiidii hore aan ku xusay xawaadle kitaabkaas qur-aanka ayaa midigta ugu qaaday welina meesheedii ayay iga tahay isagaa xoojinayaa qodobada hadda ku soo baxay go'aanka waxay wada sheegayaan ama saaran laxan ah aayad qur-aana iyo xadiis shariif qodob aan qolan ku dulmanayo koox aan kula hadlayo garab aan kula hadlayo ma ah beesha xawaadle waxaan u soo jeediyey qodobada 8 ah ayagana way iga qaateen ilaahu igu ogow kitaabkaas inaan ku dhaqayo inay ayka fuliyaan ilaahu tusi intaasna saasaan horta aan u leeyahay inta hore ilaahay naga qaad aafada adduun way baanta ilaahay nagu kori wax bay leedahay biyo bay leedahay dab bay leedahay ilaahu naga qabo ilaahu roob noo dee ilaahu xaris noo dee ilaahu wadaan ku barayna adoonkaada ayaan ahnay ilaahu wax kastoo dhibaa naga qaad ilaahu wax kastoo dhibaa naga qaad ilaahu ummadda nabad u dhigtaan intaa ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku eegaynay shirweynihii dhaqanka beesha xawaadle ee loogu magac daray samadoon kaa oo lagu soo gabagabeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan barnaamijka anigoo cabdiweli xasan jimcaale cawke ayaa idiin soo saaray idlana socodsiinayey idinkuna waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan gaarka ah Keep